الدنيا والدين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن سور دوينينا مانتا ديارته عيدن كحوق دالك الصوماليات gaar ahaan ciidanka cirka Soomaaliya oo nagala soo qayb galay barnaamijkan ka socda gobolka ee hawlgallada hadii Ilaahay yiraahdo khawaarijta dhulka looga xoreynayo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dawladda sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leenahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa dhismay aad iyo aad intii ka qayb qaadatay dhismahaas iyo dib u habeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhanna waa u mahadcelinaynaa waxaan leenahay balad xaa ku soo dhawaada maanta oo nabad ah waa gobolkiini waa deegaankiini waa dawladdiini waa dhulka dawladda ka ahaydeen waa dhulka xoogga u ahaydeen waa dhulka u dhaarateen waa xuduud aad iyo aad waa u maasantihiin sidoo kale waxaan leeyahay maamulka iyo taliyaha guutada iyo dhammaan saraakiisha iyo xubnaha amniga oo meeshan ku sugan ayagana waa u mahadcelinaya aad iyo aad bay u maasan yihiin soo dhawaada waa maasantii awalan horta macnaha waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya taliyaha xoogga iyo dhammaan macnaha mas'uuliyiinta dawladda mahadcelin kadib maanta waa guul taariikhi ah waa maalin lagu weyn annaga hadaan nahay reer Gedo waa markii ugu horeysay oo diyaaradii xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka soo degaan burburkii kadib macnaha magaalada Balxaawo marka waxaan leeyahay hambalyo leeyahay inta kadib waxaan u mahadcelinayaa mas'uuliyiinta nagala qayb qaadatay in macnaha diyaaradaha maanta ay halkan ka soo degaan ugu horeeyay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha taliyaha xoogga aad iyo aad baan macnaha in kugu mahadcelinayaa ilaahay baa mahad iskale isugu kaana keenay xarada taliska guutada tobnaad oo UK oo ku taala Balxaawo anagu awood ma lihin inta kadib waxaan u xaqiijinaynaa diyaaradaha in ay meeshaan amni tahay guutada tobnaad labada urur oo hadda hal urur laga dhigay ururka 27 degan yahay amniga uu safe yahay wax oo dhib oo ii sheeg amniga looga baqi karan oo san jirin inta waxa kale oo sheegaynaa anaga internetka waxaan nahay waxa isugu jirnaa ciidanka booliiska nabad sugidda iyo militariga hay'adaha amniga kala duwan anagoo dhan waxaan nahay doonayaal waxaan doonaynaa dalkoo nabad ah waxaan doonaynaa waxa kamid ah waxa hadda bilowga ah oo diyaaradaha militariga oo maanta noo yimid in ka sii badan in dawladda meel waliba nidaamka dawladda uu ka shaqeeyo dadka deegaanka joogana dawladda ay ogol yihiin intaas ay raali ka yihiin waxaan u maleynayaa sidii saraakiishii ugu horeysay u sheegeen burburkii kadib ma imaan meeshaan diyaarad sidaan oo kale oo dawladeed ma imaan taasna wax lagu farxaa ah waxaan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo taliyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad baa u mahadsantihiin waxaan idin sheegaynaa marka inaan isku soo laalaaban doono adinkuna waxaan filayaa in amni aad ku qanacsan tihiin iyo meesha aad joogtaan indhihiina idin macallin ah warka ma rabo inaan sii badiyo Soomaaliya ha noolaato aad iyo aad baad u mahadsantihiin maanta ayaa waxaa ka soo degay xerada militariga degmada Balxaawo ee UK diyaaradaha sida qumaatiga u duula ee helicopterka labadan diyaaradood ayaa siday agab military iyo shixnad kale waxaa la hadlay warbaahinta taliyayaasha ciidanka ee kala ah taliyaha guutada Aadan Siyaad taliyaha qaybta booliska iyo midka nabad sugidda waxaana hadaladoodii kamid ahaa ilaahay baa mahad iskale isugu kaana keenay xarada taliska guutada tobnaad oo UK oo ku taala Balxaawo inta kadib waxaan u xaqiijinaynaa diyaaradaha in ay meeshaan amni tahay guutada tobnaad labada urur oo hadda hal urur laga dhigay ururka 27 degan yahay amniga uu safe yahay wax oo dhib oo ii sheeg amniga looga baqi karan oo san jirin inta waxa kale oo sheegaynaa anaga internetka waxaan nahay waxa isugu jirnaa
ciidanka booliiska nabad sugidda iyo militariga hay'adaha amniga oo kala duwan annagoo dhan waxaan nahay doonayaal waxaan doonaynaa dalkoo nabad ah waxaan doonaynaa waxaa ka mid ah waxa hadda bilowga ah oo diyaaradaha militariga oo maanta noo yimid iyo in ka sii badan in dawladda meel waliba nidaamka dawladda uu ka shaqeeyo dadka deegaanka joogana dawladda ay ogol yihiin intaasay raalli ka yihiin waxaan u malaynayaa sidii saraakiishii ugu horreysay u sheegeen burburkii kadib ma imaan meeshaan diyaarad sidaan oo kale oo dawladeed ma imaan taas waa wax lagu farxo ah waxaan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo taliyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad baa u mahadsantihiin waxaan idin sheegaynaa marka inaan isku soo laalaaban doono adinkuna waxaan filayaa in amni aad ku qanacsan tihiin iyo meesha aad joogtaan indhihiina idin macallin ah mahad celin kadib maanta waa guul taariikhi ah waa maalin lagu weyn annaga haddaan nahay ree Gedo waa markii ugu horreysay oo diyaaradii xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka soo degaan burburkii kadib macnaha magaalada Balxaawo marka waxaan leeyahay hambaliyaan leeyahay intaa kadib waxaan u mahad celinayaa mas'uuliyiinta nagala qayb qaadatay in macnaha diyaaradahan maanta ay halkan ka soo degaan ugu horeeyay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha taliyaha xoogga aad iyo aad baan macnaha inkugu mahad celinayaa diyaaradihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka cirka Soomaaliya oo nagala soo qayb galay barnaamijkan ka socda gobolka ee hawlgallada haddii Ilaahay yiraahdo khawaarijta dhulka looga xoreynayo aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dawladda sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leenahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa dhismay aad iyo aad intii ka qayb qaadatay dhismahaas iyo dib u habeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhanna waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay Balxaawo ku soo dhawaada maanta oo nabad ah waa gobolkiinni waa deegaankiinni waa dawladdiinni waa dhulka dawladda ka ahaydeen waa dhulkaad xoogga u ahaydeen waa dhulka u dhaarateen waa xuduud aad iyo aad waa u mahadsantihiin